afayeen u hadlay ciidamada qalabka sida ee dowladda Ukraine kuna sugan magaalada lagu magacaabo Kramatorsk waxa uu beeniyay in ciidamada dowladda Ukraine ay beegsadeen barxuduudeed oo ay isticmaalaan ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa federaalka ee dowladda Ruushka kuwa ku sugan gobolka Rostov. waxa uu tilmaamay sheegashada xukuumadda Moscow inay tahay mid been abuur ay doonayso inay marmarsiyo kaga dhigato dagaalka bilowgiisa sida uu hadalka u dhigay. kama hortagi karna inay soo saaraan macluumaadyo been abuur ah, laakiin waxaan carabka ku adkaynaynaa inaanan beegsan doonin goob kasta oo rayd ah ama gobolka Rostov ka tirsan oo dalka Ruushka ayuu yiri afayeenka militariga ee dowladda Ukraine Pavlo Kovalchuk oo warbaahinta la hadlay. wuxuu hadalkiisa ku sii daray ma jira wax madfaca oo lagu garaacayo ciidamada dowladda Ruushka ee ku sugan deegaanada xuduudda dhaca. maalintii Jimcaha la soo dhaafay madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden ayaa shir jiraa'id uu ku qabtay aqalka cad waxa uu ku sheegay inuu rumaysan yahay in dhigiisa dowladda Ruushka Vladimir Putin uu qaatay go'aanka kama dambaysta uu doonayo inuu ku weeraro gudaha dalka Ukraine. taasina waxay ahayd mid saacadii ugu dambeeyay aad loo hadalhayay. iyada oo laga duulaya doqeymihii ugu dambeeyay ayaa madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin wuxuu kulan degdeg ah isugu yeeray saraakiisha ammaanka ee dalkaasi waxaana golaha ammaanka ee Ruushka ay yeesheen kulan saacado qaatay oo xaaladii ugu dambeeyay ee soo kordhay looga hadlayay. kulanka golaha ammaanka ee qaranka dowladda Ruushka iyo madaxweynaha dowladda Ruushka oo saacado socday ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay arrimaha ammaanka, siyaasadda, militariga, bini'aadanimada iyo sidii dowladda loogu aqoonsan lahaa labada gobol ee dhanka bare ee dalkaasi Ukraine ku yaala si loo kala dhantaalo dadweynaha ama dalweynaha Ukraine. dhowaan ay ahayd markii aan baahinay macluumaadka la xiriira in Ruushka hubka kale ee Ukraine uu ku weerari karo ay qayb ka tahay inuu dowladda madax bannaan u aqoonsado gobolada Lugansk iyo Donetsk kuwaas oo gobollo ka tirsan dhanka bare ee dalka Ukraine. waana kulanka madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin uu ka sheegay in dalkiisa uu wajahayo khataro waaweyn oo saacadii la soo dhaafay la kulmayeen ciidamadiisa khatarahaas oo ka imaanaya dhanka kooxaha taageerada siinaya dowladda Ukraine. waana kulanka madaxweyne Putin sidoo kale uu ka sheegay in dowladda Ukraine waqti xaadirkan aysan diyaar u ahayn inay qayb ka noqoto ama ay ku biirto gaashaanbuurta NATO. ra'iisul wasaaraha dowladda Ruushka Michel Mosheston ayaa dhankiisa wuxuu ku dhawaaqay in dowladdiisa iminka diyaar ay u tahay inay wajahdo khatar kasta oo ku imaanaysa ciidamadooda ayna diyaar u yihiin dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba marka la eego Ruushka jawaab kasta oo ka bixinaya weerarkaga yimaada reer galbeedka. xiriirka u dhexeeya Kiev iyo Moscow ayaa xumaaday 2014 taas oo ka dhalatay markii ciidamada dowladda Ruushka ay qabsadeen jasiiradda Crimea oo dalka Ukraine ka tirsan iyo taageerada Moscow ee siiso kooxaha gooni ugoosadka ah ee ku sugan gobolka Donbass. Ukraine iminka waxay diyaar u tahay inay dhaqangeliyaan heshiiskii Minsk kaas oo ogolaanaya in aan lagu dagaalamin gobolka Donbass. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka ayaa dhankiisa waxa uu shaacu ka qaaday in wadada kaliya lagu badbaadin karo gobolka Donbass ay tahay inay dal madax bannaan u aqoonsadaan waana qorshe Ruushka mar walba uu damacsan yahay. dhinaca kale madaxweynaha dowladda Ukraine ayaa booqday mar kale ciidamada ammaanka ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka isagoo shaah la cabay qaar ka mid ah askarta. kooxaha madaxweynaha ayaa wariyaha waxay u sheegeen in xaaladda amni aysan mar kale walaacaysan ka jirin marka la eego ammaanka goobaha madaxweynaha uu tagay. Volodymyr Zelensky ayaa wuxuu ku adkeysanayaa inuu tagi doono furmo kale oo ciidamada ammaanka ay ku sugan yihiin. kulan ay lahaayeen madaxweyne Putin iyo madaxweyne Joe Biden ayaa dhanka kale weli la sugayaa iyada oo jawaabta laga sugaya dhanka madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin maadaama shirkaasi uu ka dhigay fadlan kor u hay oo kale. wadamada qaar ayaa si cad waxay u cadaadinayaan xukuumadda Kiev taas oo inay samayso tanaasul kaasoo ay u arkaan wax aanan macquul ahayn oo ay ku jirto inay ka tanaasusho hadafkeedii dheeraa ay ahaa inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO. maalin walba iyo sanad walba indhaha iyaga ma xiran karno oo ma dhihi karayna Ruushka oo kaliya ayaan doonaynaa inaan tiisa aan u fulino. sidoo kale waxaa jira xubno ka tirsan gaashaanbuurta NATO oo arrintaasi ku taageeraya Ruushka sidaasi waxaa yiri madaxweyne Zelensky oo u warramay warbaahinta BBC-da. taasi waxay ka dhigan tahay in xitaa NATO ay la kala safan yihiin dhinacyada iminka dagaalamaya oo dagaalka ugu weyn oo Ukraine iminka ay geli karaysa ay tahay NATO ku biir iyo kuma biiraysid. maalin dhaweed ra'iisul wasaaraha dowladda Jarmalka ayaa hoosta ka xariiqday in xubinnimada Ukraine ee gaashaanbuurta NATO ay u noqon doonin arrin looga doodo maadaama aysan ajandaha ku jirin. laakiinse xukuumadda Moscow waxay cadeynaysaa damaanad qoran oo muujinaysa in Ukraine laga saari doono isbahaysiga gaashaanbuurta NATO xitaa haddii ay ku biiraan. macquulna ma aan arrintaasi inay aqbasho dowladda Ukraine waana mid keenaysa in iminka Ukraine ay sheegto taasi inay dagaal ay ka xigto. dhinaca kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Ukraine ayaa gabi ahaanba